السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta cashirkeena waxaan ka bilaabaynaa how to draw substituted halogenes. cashirkii hore waxaan soo qaadanay how to name, sida loo magacaabo. hadda sida structure-ka loo qoro ayaan qaadanaynaa cashirkeena maanta. example-ku ugu horeeya waxaa lagu yiri draw, sawir ama qor the structure of 2,3,4 trichlorohexane ayaa lagu yiri qor structure-kiisa. waxaan samaynaynaa ugu horeyn markii structure-ka la qoraayo always waxaa la soo qaataa parent chain name, magaca uu leeyahay parent chain-ka, silsilada ugu dheer magaca ay leedahay. silsilada ugu dheer magaca ay leedahayna waa magaca ugu dambeeya meeshan, waa hexane. hexane meeqa kaarboon uu ka kooban yahay? hexane wuxuu ka kooban yahay 6 kaarboon atom. waxaan qoraynaa 6dii kaarboon atom. okay, waa qornay 6 kaarboon atom. 1 2 3 4 5 6 waan nambarinaynaa. haddana 1 2 3 4 5 6 aan ku qoraynaa annagoo meeshaan doonna ka bilaabayna nambarka. okay, aan nambarino. ka wuxuu ii noqonayaa kaarboonka koowaad, kaarboonka labaad, kaarboonka saddexaad, kaarboonka afraad, kaarboonka shanaad, kaarboonka lixaad. intaan akhrinaynaa marka intaan ku laabanaynaa. inta maxaa iigu qoran? kaarboonka labaad, kaarboonka saddexaad, kaarboonka afraad waa lagu dhegan yahay. yaa ku dhegan? try macnaheedu waa 3 kalooro. 3 kalooro ku kala dheji, midkiiba halaa ku dhegaaya, midkiiba hal atom oo kaarboona ku dheji. okay, 2 waxaa ku dhegay Cl chlorine. 3 waxaa ku dhegay Cl. 4 waxaa ku dhegay Cl. saa u jeedaan hoosaan ku wada qoray. arday oo koraa ku wada qori kartaa, waa u kala qaybin kartaa, kor iyo hoosaa kala geyn kartaa, waa isku mid. haddaan hoos ku wada qoro, haddaan kor ku wada qoro, haddaan hal kora hal hoos hal kor ka dhigo same, waa isku mid. okay, maadaama kor ay ugu qoran yihiin tirooyinka, aniga hoosaan ku wada qoranayaa si tirooyinkana aan idinkugu muujiyo oo aan idinkugu tuso. okay, intana ku dheji Cl. hadda maxaa noo haray? number of hydrogen atoms inaan buuxino annagoo raacayna heerkii hore oo ahaa kaarboonku inuu yeelan karo 4 bounds, 4 dabar, 4 xariiqood. kaarboonka geeska halkaas xariiquu leeyahay single bound, hal xabo. meeqaa u hartay? 3 xariiqood ama 3 bound. 3dii bound booskooda waxaa gelaya 3 hydrogen. akaas geeska kale single bound, hal xariiq ama hal dabar uu leeyahay, 4 laga rabaa, waxaa u hartay 3. 3dii waxay noqonaysaa 3 hydrogen. kuwa dhexda ku jira for example kan oo kale 2 xariiquu leeyahay, 2 bound uu leeyahay, 4 bound inuu lahaadaa laga rabay, 4 dabar. meeqaa u hartay? hadduu 2 leeyahay 2 u hartay. 2 hydrogen ku dar. kan 2 dabar uu leeyahay iyo dabarkan 3, hal dabara u haray, hal hydrogen waaye halkii dabar. hal hydrogen uu qaadanayaa, 2 u qaadan lahaa, intaa looga dhegan yahay. kan dhexduu ku jiraa 1 2 3 uu leeyahay, halaa u haray, halkii hal hydrogen uu noqonayaa.
ku jiraa hal hydrogen u haray sababtoo ah 1 2 3 kan afraad waa ka hydrogenka waa sidaas waxaan ku qornay structure-kiina la weydiiyey ee ahaa 2,3,4 tri chlorohexane sidaasaan u qornay waxaan gelaynaa example-ka labaad insha Allah example-ka labaadaan qoranaynaa example-kan labaad wuxuu noo noqonayaa okay structure-kaas magacaan structure-kiisa nala ka rabaa 2 bromo 3,4 dimethyl bentane ayaa nala ka rabaa ugu horeyn maxaan samayn jirnay waxaan soo qaadanaynaa magaca meesha noogu qoran kan ugu dambeeya kaasoo noo noqonaya parent chain name bentane bentane imise carbon ay ka kooban tahay 5 carbon atom ayay ka kooban tahay 5tii carbon atom aan qoraynaa 1 2 3 4 5 number aan ku qoraynaa haddana waan nambarinaynaa numberka meeshaan doonnaan ka bilaabaynaa okay alkaynaan joognaa single baan waay meeshaan doonnaa haddaa intaan ka bilaabaa dhankaanan ka bilaabaa hadda 1 2 3 4 5 intaas markaa samayso qodobka saddexaad halkan akhri kaarboonka labaad maxaa ku dhegan bromo ku dheji markaan koraan uga dhejinaynaa bromo b capital r small lambarkii labaadna halkaanaan ku qoraynaa 3 iyo 4 kan saddexaad iyo kan afraad waxaa ku dhegan di minus 2 2 methyl 2 CH3 ayaa waxaad ku kala dhejinaysaa midna kaarboonka saddexaad midna kaarboonka afraad okay kaarboonka saddexaad waa methyl waa CH3 kan afraadna waa CH3 asagana waa dhammayne hydrogenadaan buuxinaynaa marka kuwa geesaha min 3 kuwa dhexda ku jira haddaan lagu dheganayn oo baranja aysan ahayn waxaa ku dhagaaya min 2 kan gees uu jiraa 3 hydrogen uu leeyahay okay wuxuu leeyahay 3 hydrogen kan dhexduu ku jiraa 1 2 3 hal habaa u haray kan dhexduu ku jiraa wuxuu leeyahay 1 2 3 halaa u haray kan dhexduu ku jiraa 1 2 3 uu leeyahay waxaa u haray hal dabar halka dabar wuxuu noqonayaa hal hydrogen kan geesuu jiraa halkayuu leeyahay 3 hydrogen ayaa ku dhegaysa geesuu jiraa waa kaas structure-kii nala weydiiyey qaabkaas ayaa loo sameeyaa drawing ama structure-ka loo qoraa
markii lagu weydiiyo oo name lagu siiyo horeyna waxaan soo qaadanay structure lagu siinaayay name-ka laga rabay maanta cashirkeenu wuxuu ku saabsanaa in lagu siiyo name-ka oo lagu yiraahdo structure-ka qor intaas ayaan ku joojinaynaa cashirkeena maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته